nimanka waxaan ku soo heshiinay oo nooydiyan inta halkaan dhamayno oo ah sharciga oo baarlamaanka baaskareeyo iyo komishanka oo hawlgala labada hawshood inta badan dhamaatay insha Allah baarlamaanada labada aqal fasax ku jiraan inta way dhamayn doonaan marka ka bacdi waa la sameyn doonaa maartay qorshihii iyo hawlgalkii iyagu waxay noo sheegeen inay intaas sugayaan ay diyaariyeen markaanu ka soo noqonay waxaanu aragnay safaaradaha qaar kamid ah iyo safiirkooda ninkaas oo mararka qaar ka aad moodo inuu ku soo taagtaagay Soomaaliland waxaan doonayaa halkan aan ka qiro in si qarannimo loola hadlay oo waliba naga fadal cadaayeen qolada mucaaradka caday waxa weeye inaan halkan magaalada saay aanu socdaalkayga tusiyay in saddexda xusbiba ay ka go'an tahay inay doorashada insha Allah taala inoo dhacdo doorashooyinka inoo dhacaan waxaan kaloo saxaafadda ka maqlayay ugu yaraan 3 jeer madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirro inay kula shireen guriga madaxweyne ku-xigeenka waxa leeyahay hay'adaha la soo jeediyay kastoon ka maqnaa waxa lagu soo sameeyay halkaas baa lagu soo warshadeeyay eeda goluhu leeyayna maaha xildhibaanada hadlay aad sheegayso tiwa muxaafid iyo kuwa u jawaabayba ومدنياشيدii golaha wakiilada aniga oday waa golahana aniga oday ka golaha dhexdiisa wixii yaala ee isaga khuseeya gudihiisu kaga wada hadli doona hadii ilaahay ka dhigo ordo xilqaadistu oday dad sharciga soo marto waa riiska caadiya waxaan oran lahaa qof kasta sharciga ka sareeya ama aniga noqdo mid kale ha noqdo marka waxay la tahay hadii ay timaado oo dariiq sax soo marto waxay la tahay dariiqeeda la marin doonaa laakiin waxaan oran lahaa suugaanta iyo gabayada waxa ku wanaagsan yihiin madidee hargoolow ay ugu tumin durbaanada iyo daasada maran